wacan saaxiibayaal halkan waa xulashada wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya. Qodobada aad daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya oo safar degdeg ah ku tagay wadan uusan hore u tagin. Dowladda Kenya oo eedeyn culus u soo jeedisay Soomaaliya. Xogta iyo qorshaha dowladda Soomaaliya oo dalka Eritrea tababar ugu dirtay ciidamo cusub. Maxay tahay sababta Mukhtaar Robow loogu wareejiyay xabsiga guriga? Hoggaanka Al-Sunna oo laba u kala qaybsamay dowladana sabab u ah Al-Shabaab oo war ka soo saartay saddexda madaxweyne ee lagu doortay Jubbaland go'aan rasmi ahna gaartay. Qodobadaasi qodobo kale ayaa daawan doontaan u diyaar garooba saaxiibayaal. Mar kale kulan wacan haddii aad inagu cusub tahay fadlan subscribe saar si wararkeena aad ula socoto. Kuna dhufo gambeelka ku muuqda si aad u noqoto daawadaha koowaad markaynu wararkeena baahino. aynu ku bilaabnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Japan. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambabaxay dalka Japan oo uu ku furmayo shir madaxeedka toddobaad ee iskaashiga wadamada Afrika iyo Japan. shirweynaha oo socon doona muddada u dhaxaysa 28 ilaa 30 bishan ayaa madaxda dalalka ku buubay madashan ururada qaramada midoobay ee midowga Afrika maalgashadayaasha iyo khubarada waxay ka gaarinsan doonaan mustaqbalka xiriirka labada dhinac ka faa'iideysiga fursadaha tiknoolajiyadda kor u qaadista iskaashiga dhinacyada amniga socdaalka horumarinta xirfadaha shaqo abuurka xuquuqda aadanaha dimuqraadiyadda dhaqaalaha iyo maalgashiga. wafdiga dowladda federaalka ee uu hogaaminayo madaxweyne Farmaajo ayaa intay ku sugan yihiin magaalada Yokohama ay martigelinayso shirka waxay kulan dacoodyo la yeelan doonaan qaar ka mid ah madaxda ka soo qaybgalaysa shirkan ayaa waxaa ka qaybgalaya hogaamiyaasha dalalka Afrika iyo Japan hay'adaha qaramada midoobay ee horumarinta bangiga adduunka iyo golaha guddiga midowga Afrika. madaxweynaha Soomaaliya waxaa wafdiga wehelinaya qayb ka ah wasiirka arrimaha dibadda iskaashiga caalamiga Ambassador Axmed Ciise Cabad, wasiirka maaliyadda Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, agaasimaha guud ee madaxtooyada Dr. Nuur Deeriye Xirsi Fursade, iyo taliyaha madaxweynaha iyo arrimaha dibadda Bilaal Maxamed Cusmaan. dowladda Kenya ayaa waxaa eedeyn culus u jeedisay dowladda Soomaaliya oo xurguf waayidii u dambeysay ay kala dhaxaysay. dowladda Kenya ayaa mar kale weerar afka ku qaaday dowladda federaalka ee Soomaaliya iyada oo ka maagtay meel fagaara. Kenya ayaa ku eedeysay Soomaaliya inay ka dambeyso go'aanka ay Djibouti uga hortimid codeynta midowga Afrika ee kursiga qaramada midoobay. waxaa kale oo ay sheegtay in go'aanka Djibouti uu meel ku dhac ku yahay dhaqanka guud ee qaaradda Afrika. sidoo kale waxay tilmaamtay in dalalka saldhigyada ku leh dalkaas ay gadaal ka riixayaan in Djibouti ay u tartanto xubinnimada aan joogtada ahayn ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay. dhowaan ay ahayd markii danjiraha Djibouti ee qaramada midoobay Maxamed Siciid Ducaale uu sheegay inaysan ku qancin codeyntii midowga Afrika. danjiraha ayaa tilmaamay in Djibouti ay u tartami doonto kursigaas marka la gaaro bisha Juun ee sanadka soo socda. Kenya ayaa dadaal badan ku bixinaysa helidda kursigan si ay maxkamadda ICJ ugu baajiso dooda ay ku doonayso biyaha Soomaaliya. waxyaabaha kale ee dowladda Kenya kursigan aadka ay ugu danaynayso waxaa ka mid ah xeerka ama cunaqabateynta Al-Shabaab lagu rogayo oo ah in Al-Shabaab loo aqoonsado urur argagixiso ah kaasoo dowladda Kenya ay u gudbisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. balse dowladda Soomaaliya ay ka biyo diidan tahay waxaana Kenya looga cabsanayaa in cunaqabateyn badan ay ku soo rogto ganacsatada Soomaaliyeed ee dalka Kenya ganacsiga ku leh. dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Kenya muran badan ayaa ka dhex jiray tan iyo markii dowladda Soomaaliya dib u cusboonaysiisay kiiska badda oo waayadii u dambeeyay dardar ku socday. waxaana dowladda Kenya ay ka biyo diidan tahay in kiiskaas la geeyo maxkamad. taas beddelkeedna waxay doonaysaa in wada hadal lagu dhameeyo. waxaa jira qorshe ay wado dowladda Soomaaliya oo ah in dalka Eritrea tababar ay ugu dirtay ciidamo cusub. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tiradii ugu horeysay oo dhalinyaro Soomaali ah tababar waxay ugu dirtay dalka Eritrea oo dhowaan heshiis saaxiibtinimo la galay Soomaaliya. xulashada wararka ayaa ogaatay dhalinyaradan tababarka loo qaado oo gaaraya ku dhawaad 100 qof ayaa la sheegay in xulistooda ay socotay dhowrkii bil ee la soo dhaafay sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii ka qayb qaatay arrintan. dadka la qaado oo tiradooda lagu sheegay ku dhawaad 100 ayaa la sheegay in la siin doono tababar casri ah oo ku saabsan la dagaalanka iyo helista xogaha argagixisada. odayaasha dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ee u diiwaangashan wasaaradda arrimaha gudaha dib u heshiisiinta federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay in loo maray xulista dhalinyaradan loo qaaday dalka Eritrea. warbaahinta qaarkood waxay la kulmeen dhalinyaro aan weli u bixin laakiin laga diiwaangeliyay hay'adaha amniga Soomaaliya si dhawaan loogu qaado dibadda. waxaana ay warbaahintu u sheegeen in qaar kale ay ka horeeyeen oo maalmo ka hor dalka ay ka baxeen. Eritrea oo dhawaan laga qaaday cunaqabateynta saarneed kadib markii la heshiisay Ethiopia ayaa sidoo kale heshiis la gashay dowladda Soomaaliya. dalka Eritrea waxaa hore loogu eedeeyay inuu la shaqeeyo isla markaana uu taageero argagixisada Soomaaliya waxaana mar uu soo dhaweyn jiray
kooxihii islaamiyiinta Soomaaliya inkastoo Eritrea ay beenisay eedeymahaas. madaxweyne Farmaajo ayaa qaaradda Afrika waxa uu ka sameysanayaa xulafo gaar ah waxaana Eritrea iyo Ethiopia yihiin saaxiibada aad ugu dhow madaxweynaha xilligan la joogo. sababta rasmiga ee ka dambeysay in Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur laga wareejiyo xabsigii guriga ayaa la ogaaday markan. isbedel ayaa lagu sameeyay xaaladda amni ee Mukhtaar Robow sida ay sheegayaan warar lagu kalsoon yahay. dowladda federaalka waxay ka wareejisay Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur xabsi uu ku jiray muddo 9 bil ah waxaana la geeyay xabsi guri kale oo ku yaala madaxtooyada Soomaaliya sida ay ogaatay xulashada. Abu Mansuur ayaa la dejiyay guri dhawaan lagu sameeyay dayactir kaasoo ku yaala gudaha madaxtooyada Soomaaliya gaar ahaan agagaarka hotelka Gobsoor ee Villa Soomaaliya waxaana aad loo adkeeyay ammaanka gurigaas. ilwareedya ayaa waxay ku waramayaan sidoo kale dowladda ay ogolaatay in guriga ay ku soo booqan karaan ehelkiisii siyaasiyiinta ay isku heebta yihiin. xulashada wararka waxay ogaatay in halkii uu ku xirnaa 9 bilkii la soo dhaafay Abu Mansuur laga soo wareejiyay sababo la xiriira dayactir ku socda guriga VIP-da loo yaqaan ee Taliskinisa iyadoo la sheegay in guri cusub uu sii joogi doono muddo dhowr cisho ah oo dhaxaysa 30 ilaa 60 cisho. Robow oo ka mid ah aasaasiyaashii kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida ee Al-Shabaab ayaa loo fasaxay inuu sameyn karo dhaqdhaqaaq madax bannaan. macadda haddii tallaabooyinkan ay yihiin kuwa ka meel gaar ah hay-adaha amniga ayaanan ka jawaabin isku dayo ay xulashada wararka wax ugu weydiin lahayd arrintan. si kastaba arrimahan ayaa yimid ka gadaal markii dadaalo ay sameeyeen dhinacyada kala duwan oo galaangal ku leh dowladda Soomaaliya oo aad ugu dhow Mukhtaar Robow kuwaas oo sababahanba ayaga inay ka dambeeyeen wararku ay sheegayaan. Mukhtaar Robow Cali Abu Mansuur waxaa soo qabtay ciidamada Ethiopia 13 bishii Diseembar ee sanadkii 2018 kadib markii uu soo sharaxay xilka madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyadoo ay u diidaneed dowladda Soomaaliya waxaana lagu eedeeyay inuu ka baxay heshiis lala galay Robow. hogaamiye ku-xigeenkii hore ee Al-Shabaab ayaa dowladda isku soo dhiibay sanadkii 2017 waxaana xilligaas uu shaaciyay inuu wada hadal kula jiro dowladda. iyadoo labada dhinac aysan soo qaadin wadaxaajoodyadooda ayaa mar qura waxa uu ku dhawaaqay inuu musharax u yahay doorashada Koonfur Galbeed. dadaalo badan waxaa la geliyay sidii lagu sii deyn lahaa balse ilaa iyo haatan ma aysan suurtagelin waxaana diiday madaxda dowladda federaalka oo ugu horeeya madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. hogaanka Al-Sunna laba ayuu u qaybsamay waxaana lagu eedeynayaa dowladda federaalka inay kaalin weyn arrintaas ka qaadatay. ilaa lagu kalsoonaan karo oo ku sugan Dhuusamareeb waxay xulashada wararka u sheegeen in khilaaf uu soo kala dhaxgalay hogaanka Ahlusunna wal Jamaaca ee gacanta ku haya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guraceel ee gobolka Galgaduud. khilaafka ayaa yimid kadib markii xubno ka mid ah Ahlusunna ay ku sheegeen inay ka baxeen heshiiskii ay la gaareen dowladda dhexe ee Soomaaliya kadib markii la fulin waayo qodobadii lagu heshiiyay. qaar kale oo ka mid ah hogaanka Ahlusunna oo uu hogaaminayo Sheekh Ashcari ayaa sheegay in heshiisku yahay sidii lagu kala sixday oo aanan loo baahnayn in maanta laga laabto isla markaana dowladda dhexe ee Soomaaliya ay taageeraan si ay ugu yaraan qaar ka mid ah qodobada heshiiska ay u hirgalaan. hogaanka ciidanka Al-Sunna ayaa sidoo kale ka soo horjeestay tallaabooyinka uu qaaday Macalin Maxamuud iyo wasiirka qorsheynta Galmudug ayagoo u arka kuwa ka sii daraya xaaladda Galmudug. kulan ay yeesheen hogaanka Al-Sunna oo ka mid ah Macalin Maxamuud, Sheekh Shaakir iyo Sheekh Ashcari ayaa xalay dhamaaday iyadoo wax go'aan oo midaysan aan lagu gaarin. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in la filayo in kulamo kale ay yeeshaan dhinacyadan si ay u qaataan go'aano isku mid ah oo ku saabsan heshiiska dowladda iyo xaaladda Galmudug. culimaaddeenka Al-Sunna waxay ka biyo diidan yihiin in dowladda federaalka aysan dalacsiin qaar ka tirsan saraakiishooda sidoo kalena magaalada Dhuusamareeb ay tagaan ergo ay ku tilmaameen qaarkood inay faafinayaan ayna adeegsanayaan diin qaldan. waxaa xubnaha aadka ay kaga caroodeen ka mid ah Sheekh Bashiir oo la sheegay inuu khudbad ka jeedin doono shirka dib u heshiisiinta Galmudug oo magaalada Dhuusamareeb ka furmaya. warar kale waxay sheegayaan in magaalada maalmaha soo socda uu ku wajahan yahay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Khayre kaasoo booqasho ku tagi doona magaaladaas oo dhawaan uu ka soo laabtay si uu u soo furo shirka dib u heshiisiinta Galmudug. Al-Shabaabna waxay war ka soo saartay saddexda madaxweyne ee lagu doortay Jubbaland. kooxda Al-Shabaab ayaa markii ugu horeysay waxay si rasmi ah uga hadashay doorashooyinkii ka dhacay Jubbaland halkaasoo 3 madaxweyne oo isdiidan ay ka soo baxeen. Maxamed Abu Cabdullah oo ah mas'uulka Al-Shabaab u qaabilsan jubbooyinka oo wareysi siiyay idaacadda afka Al-Shabaab ku hadashay Al-Andalus waxa uu sheegay inay dagaal la geli doonaan dhammaan 3 madaxweyne ee sheegtay Jubbaland. ninkan oo ku magac dheer Abu Cabdullah waxa uu sheegay in Jubbaland ay ku loolamayaan dowladaha Kenya iyo Ethiopia reer galbeedka isla markaana madaxweynayaasha la doortay lagu adeegto.
waxa uu sheegay in dadka isku haya Jubbaland aysan xitaa ahayn dad madax bannaan isla markaana qori caaradiisa lagu qasbayo inay fuliyaan danaha dalal shisheeye sida uu sheegay. Jubbaland waxay gobolada Jubbooyinka ka maamulaan kaliya 2 degmo, marka qof kasta oo madaxweyne sheegtay waxaa laga doonayaa halkii uu maamuli lahaa yiri. Waxaa kale oo uu sheegay in dadka shacabka ee ku nool deegaanada ay maamusho Jubbaland gaar ahaan Kismaayo ay maalin kasta u soo cararaan dhinaca goobaha ay maamulaan Al-Shabaab ayna ka saari doonaan goobaha sida hadalka uu dhigay ninkan. guud ahaan daawadayaal wanaagga inta warkii aad kala socoteen xulashada wararka aad ku mahadsantihiin si wararkan aad ula socotaan nabadgelyo.